موضوع aan muddo badan ku guda jiray una soo diyaar garoobay diyaarintiisa mowduuca jaadka waan filayaa in aad wax badan ka ogtihiin mowduucan qaadka hase yeeshee caawa ayaan jeclaystay inaan isla fiirfiirino dalka Soomaaliya oo ah dal burburay oo ay ragaadiyeen colaado sokeeye iyo dagaalo ka dhashay burburkii dawladda Soomaaliya ee burburtay kadib waxa uu dalka Soomaaliya galay dhibaatooyin dhaqaale oo ay ugu wacan yihiin afooyinka ka dhashay dagaalada sokeeye ee baabaa barakaca burburka iyo kala lumidda bulshada iyo sidoo kale in ay lumeen akhlaaqihii qiyamkii iyo tarbiyadkii bulshada ee dawladdu maintain garay jirtay iyo kuwii kale ee qoysaska iyo guryaha looga soo gubsan jirayba wax kastaba waxa ay lumeen markii hooyo suuqa u shaqo tagtay oo ay jaad beecisay aabana suuqa ka soo iibsanayo qaad halka caruurtiina ay noqdeen kuwa laamaha jaadka suuqa ka aruuriya kuwa kalena ay yihiin kuwa reeraha ladan ka soo jeeda kuwii aabba marka uu qayilayo shaaha u soo karinayay qoriga uu ku findhilanayana u soo goynayay marka uu marqaamo ee u sheeka baanjiirka ka sheekaynayana kuwa dhageysta nimanka u yimaado aabe ee la qayilana sheekadooda kuwa dhageysta sidaana waxa ku lumay tarbiyadii iyo kala socnaantii reerka oo waxa ka dhashay tafaraaruqa iyo bulshada wada cararaysa ee caruurta iyo haweenku horboodayaan ee haatan la yaabay inkastoo jaadku wax u yeelo caafimaad ahaan qofka jismi ahaan iyo jir ahaan sidoo kalena waxa uu jaadku waxyeelayaa caafimaadka afka iyo muuqaalka qofka afkiisa uu ka dhigo mid dhoola cadeynta ka quusta sidoo kalena waxa uu burburiyaa darbiyada ciridka ilkahana waxa uu u yeelaa wasakh fara badan oo uga dhigan degalka sare dawladaha Soomaaliya ee kala dambeeyay tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa dhowr goor isku dayay inay xakameeyaan jaadka walow aanan si buuxda u hubin laakiin waa sheegashooyinkooda ee laga soo bilaabo dawladdii Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Shariif teeramkii hore ee Xasan Sheekh iyo mid haatan iyo farmaajo u dhaxeeyay gabigoodba waxay ka sinaayeen in ay xakameeyaan jaadka oo ay afka ka sheegaan hase yeeshee jaadka oo laga helo dhaqaale fara badan canshuur fara badan ay ka qaadaan ayaa loo joojin waayay sidoo kalena hadii jaadku uu joogsado muddo maalmaha waxa cabasho iyo cambaareyn iyo sidoo kale cadaadis adag ay kala kulmayaan dawladaha dariska kuwa oo yoomkii malaayiin dollar uga tashta dadka saboolka ee Soomaaliyeed ee ku nool deeqaha qaramada midoobay iyo lacagaha mucaawina ahaanta loo siiyo dawladooda iyo dalkoodan dakhli ahaan haatan soo koraya ee dagaaladu daashadeen imagine ka soo qaad wadanka Soomaaliya ee deymaha iyo cayrta iyo lacagta kaniisadaha Yurub laga soo aruuriyay iyo bulshada Mareykanka iyo bulshada Japan iyo bulshada Yurub lacagaha deeqda ee WFP la siiyo ayaa waxa ay subax kasta Nairobi iyo Addis Ababa ka faa'iidaan markay ugu yartahay min $1 milyan ama in ka badan oo daily ah warar aan lagu kalsoonayn ayaa sheegaya in dawladdii farmaajo markii ay jaadka joojisay aanay u joojin sababo wadaniyadeed iyo cadaadis in Kenya la saaro hase yeeshee isku dhaca Soomaaliya iyo Kenya iyagoo ka faa'iideysanaya ayaa la yiri Maxamed Farmaajo walaalkii la dhashay oo la yiraahdo Xasan Farmaajo ayaa wuxuu soo degsan jiray qaadka Itoobiya hereeriga loo yaqaano sida darteed Farmaajo waxa uu baanin ku sameeyay ama gabiyahan buu kansalay jaadka Miro ee Kenya laga keeno waa siday hadalka u dhigeen haddase markii mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu soo laabtay waxa uu fasaxay jaadka Miro oo ay keensadaan Axmed Ducaale Xaaf maamulaha shirkadda Dalo Ireland iyo Cabdullaahi Cado Cali Gees oo ka mid ah ganacsatada ugu taajirsan Soomaaliya oo ku hayb ah madaxweyne Xasan Sheekh Allahu yaclam ma ogin anaga xaqiiqda sheekadan hase yeeshee waa sida ay dadku leeyihiin haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaay dhaqashiyo marbay ka yihiin dharagu xaaraane dadigaansho waa ceeb inaad dhimaadsataa meel dhadhan malaha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaayay nid arbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowratay